ninkii Ruushka ahaa oo islaha adduunyada dhan laga daawado oo Soomaali cayda iyo magacdilka ah ku sameynayso ku caysh waxaanu badnay inuu kaligii istaawanayo maanta oo fiidiyoyadii xiray oo xataa fuleynimadiisa oo aan maqli jiray raganimo oo ayaro dhulka lagu hayo ummadda Soomaaliyeed waa tii sidii caadada u ahayd dadkii dhiig lahaa waa tay intay kaceen dislike iyo report ku boobay war dislike waa dhagax la isla dhacay war wallahi waa ku xunta hada la caswaalide waa maalintii sheertu qiimo lahayd fiidiyowga inaad sii sheer gareyso oo Soomaalida kale ugu bishaarayso. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa jiriroonaya saasaan u jaraynayaa farxad darteed waxaan u xamdinaqayaa Ilaahaygi Soomaaliga dhaliyay maanta hadaan dalangaaba ku soo jeedi lahaa cidlo baan ciila jiifi lahaa ninkii Ruushka ahaa ee Antona Laydof la oranayay ee intuu wadankeena tagay muuqaalka ka soo duubtay oo dunida u baahiyay oo ku tilmaamay inuu yahay dal fashilmay oo baaba oo nolol ka jirin oo magac ahaan u jira oo ah dalka adduunka oo khatarta badan hooyga burcad badeeda hooyga argagixisada ninkii muuqaalkii uu YouTube ka soo galiyay laba janaal uu leeyahay oo midna English ku baxa midna Afruush ku baxa uu soo galiyay waxa weeye qaybtii Englishka ku bixisay 500 oo kun baa daawatay 4 cisho ku jiray ummadda Soomaaliyeed waa tii sidii caadada u ahayd dadkii dhiig lahaa waa tay intay kaceen dislike iyo report ku boobay ninkii muuqaalkii lafihiisu u baqay shirkadda YouTube gabigiisaba akoonkii uu ka cayshay oo muddada dheer ku soo tabcayay wuxuu ka baqay in laga xannibo sidaa darteed fiidiyowgii waa xirtay sababtu u xirtay dadaalkii ummadda Soomaaliyeed ay samaysay oo aynu isugu hamliyeynayno baan halka idin kula wadaagaya waa musharaxiin ku reebay ninkii Shiine Culay oo ka codsanaya YouTube-kayga hadaa ku cusub tahay channel-kayga inaad subscribe saarto page-kayga Facebook-na inaad follow soo tiraahdo hadaa muuqaalka ka daawanayso sidoo kale hada la caswaalide waa maalintii sheertu qiimo lahayd fiidiyowga inaad sii share gareyso oo Soomaalida kale ugu bishaarayso like iyo comment-gana aad soo badiso ninkaas Antonio waxa la dhahaa Antona Laydof la dhahaa waa Ruush haduu reer galbeed ahaan lahaa waa cudur daar lahayd markay waligood beeniga sheegi jireen laakiin anaga iyo Ruush xagee isu somraa geelayga way isma gaaro 7-7kii baanu kala xarig furanay oo isugu kaayay damaysay marka Ethiopia dhinaca saareen wixii ka dameeya oo xilliga ka soo wareegay wada hadaan iskaga soo horbaxno dawaan isdhaafi jirna xataa salaanta iskuma boobi jirin isuma gudbi jirin ninkaas Ruush buu ka soo jeedaa wadanku yimi muuqaalka foosh xun buu ka duubay muuqaalka markuu soo galiyay qaybta YouTube ee qaybta Englishka oo uu leeyahay oo 600 kun dad ka badan ay subscribe u tahay iyo qaybta Ruushka oo dad 2 milyan iyo 200 kun ay subscribe u saareen oo ay ku xiran yihiin muuqaalkii dadka Soomaaliyeed way arkeen aad ay uga dhidhiyeen muddo 4 bari ku jiray like dislike iyo waxaan wada report baa laga daalay markuu adkaysan waayay shiidka ninka ku socda oo 80 kun oo qof ay gaareen dadka dislike ku sameeyay halka like-tii muuqaalka saartay ay 10 ku dhaafi laayeen oo reportku uu dhinac kasta uga yimi oo kuwa la yiri waa beenaale oo kuwa la yiri waa maxaa ku propaganda faafinaya oo kuwa la yiri waa double agency ya soo dirsatay oo qoloba wax ku mudacday oo shirkadii YouTube ay qaati Soomaalida dacwadeeda ka istaagtay oo isagii email ay ku soo horgufeen ninkii channel-kiisu la baqay fiidiyoyadiina waa ka saaray waa xirtay hadda sida halka ku arkaysaan waxa ku qoran fiidiyowgii hadaaba links ka siiyay hadaa baarto oo YouTube ka baarto ama channel-kiisa ka baarto kama helaysid laakiin hadii aad hore uga haysay links ama meel lagu soo share gareeyay oo Facebook ama bar kale oo social media hadda istiraahdo ku dhufo si uu maartay u daawato YouTube ku geeyo waxa ku soo bixaysa fiidiyowga kali waa xiran yahay waxana daawanaya qof kale oo kaliya ninkii Ruushka ahaa oo islaha adduunyada dhan laga daawado oo Soomaali cayda iyo magacdilka ah ku sameynayso ku caysh waxaanu badnay inuu kaligii istaawanayo maanta oo fiidiyoyadii xiray oo xataa fuleynimadiisa oo aan maqli jiray raganimo oo ayaro dhulka lagu hayo haduu xataa qaybta Englishka xiran lahaa oo qaybta Ruushka isaga daysan lahaa Soomaali Ruush ma akhridee oo halka xogaa ka guro lahaa xataa wuxuu yiri Soomaali waa dadka dulka aragtay weeye kana kaga badbaadi maysid xataa qaybtii Afruushka
oo Moscow iyo meelaha looga daawanaya xataa waa xiray wuxuu isiri kana waa kaaga daba imanaya marka ninkaasi safarka u galay wixii kharashka uu bixiyay halkii uu soo maray dadaaladii uu galay muddo bila laga yaabaa muuqaalka inuu ku qaadatay Soomaali waa kaga tuureen waxa kaaga daran horta waxaan rabaa inaan sheego dislike maxay tahay hadda koor waa qolo waaya cusub la yiraahdo ay hees habaaran soo qaadeen oo ummadda Soomaaliyeed ay ka qaylisay ba dislike dhinaca dhulka loogu dhigay maalintaas baa dad badan soo weydiiyay waxa la yiri war Shiine dislike maxaa tahay dadka Soomaaliyeed waa u sharaxay waa tane bal la eega dislike waxay tahay war dislike waa dhagax la isla dhacay war wallahi waa ku wariga like iyo oodka oo kii alla wax ka dhifsiyo nin like ku siiyay iyo gabar like ta ku taabatay waxay ka dhigan yihiin qof oodka kugu soo horay thank you arleegta igu booba horta dislike waa taaway dislike waxa ku tilmaamaa bacdana oday khabiir oo baraha bulshada isticmaalaan ahay dislike qof ku saaray kama duwana qof ku soo shido waliba ku dakhray oo dhagax ku leeyahay kama duwana marka ninka Ruushka ah wuxuu ka dhigan yahay maanta waa adkaysan waayay nin 80,000 oo dhagax Soomaali ku dhufatay maxaa ku haro ku nool waxa ku cadaynaysa waa ninka isagoo Ruush jooga maanta oo Moscow hurda in ka lidi waayay dhac oo isiri war Soomaali haday saa kuugu sii wado saxada waa ka saaraysa marka ninkaasi waxa way waa nin Ruusha wuxuu islaha reer galbeedka iska gad idaacadaha reer galbeedka badana Soomaaliya wadanka adduunka ugu khatarta badan burcadeed waxa iska maqlay wuxuu islaha Soomaaliba wax iskama saarinba dad ba inooma qaadanba internet ba inaan isticmaalaba moodo wuxuu isiri iska cay adduunyadu ha ku daawato adduunka dhan ka jirta hadda wuxuu xunaal si wadwada wuxuu isiri hadaa positive ka sheegto Soomaali malaha kun qof internet ka isticmaalo kunka un ba ku daawanaya laakiin hadaa ceebahooda iyo caydooda iyo masabid iyo waxaysan ahayn dhulkada ka saarto adduunyada dhan laga fiirsana waa lagu sii wadwada saaxiibka intuu islaha dad kale iska dhis inagii weyna ka gadoobay waa inaga dhinaca dhulka ugu dhignay haduu muuqaal ka turjumaya anaguna amaan ugama baahnin sharaf kama rabno Soomaali baan nahay laakiin dalkaas waxa ka jira iyo horumarka iyo sidoo yahay isagoo aan waxba ku kordhin haduu umada u soo bandhigi lahaa waxaan hubaa maanta waxa weeye sharaf iyo karaama Soomaali u hayn lahayd halkaas 80,000 dislike lagu boobayna 80,000 like ina ka heli lahaa marka u yartahayna milyan baa daawan lahayd marka dambe uu soo noqdana waa soori lahayn oo tulud geela iyo sabeeno maxaa ku rahay sixin iyo subag looga saaray baynu u loogi lahayn laakiinse maanta waxa isu raacay hawshii iyo dadaalkii badneed ee uu wadanka ku soo bixiyo safarkii uu soo galay kharashkii uu soo galay waa la socotaa safar waa qadca min annaar xagga uu soo maray oo khatarta halka wadanka uu leeyahay waa khatar xataa dulnimadiisa uu ka soo dul dhacay wixii kharash ka baxay wixii dadaal ka baxay wixii oo dhan uu islaha halkaas bisha hadii videogaas ku qarxo muuqaal kala duubi maysid Soomaali ba magacooda saa maxaa ku raad adduunyada ka cadaysanaysa wixii oo dhan waa khasaaro sidoo kale janaalkii uu muddada dhan ku tabcayay oo muddada dhan uu dhisayay oo tacabka badan ka galay oo ahaa YouTube-ka maanta khasaar ku sugaya dislike 80,000 markay ku dhacaan oo inta oo report ay ku dhacaan shirkadu waa u fiirsanaysaa waxa loo arkayaa qof propagandista beenaale waliba isaga isku sii marxaanti furay inagu dacwadeenu ka gudbinay isaga isku marxaanti furay shirkadii oo aan talaabo ka qaadin laakiin soo socoto ula buuco ugu soo kutubaysa oo dacwadaheeni qiimeynaysa isagii baba isku marxaanti furay oo videoga xirtay taa micnaheedu waxa weeye oo YouTube ay u cadeynaysaa ninka wixii lagu dacweynayay inay run ahayd oo intaysan YouTube talaabo ka qaadin oo isagii wixii kirkisha gashaday taasi marka waxay keenaysaa shirkadda YouTube janaalka xataa hadaysan ka xirin hadda wixii ka dameeya inay hoosta ku hayaan oo cagta saaran oo muuqaal kastu soo geliyo 2,000 ay dhaaf weydo ninkii malaayiinta daawan weyday hoosta la geliyo markay waa beenaale maxaa ku raadayay waa propagandiste marka ninka dhaawac badan u geysanay Soomaali waa dadka garanaysa iyagu dhaxdooda si kasta ay soo jiitaan isku haysteen laakiin maalinta wiil sarcad ama mid kale oo dulli oo xaasida oo meel kale ka soo caayo kaga soo baxo ya mid bay noqdaan laba maxaa la yiri laba libaax laba aar ya
كل الدناجين كسبة واسد درانة وحصايا وكبار كسر أسي وحشيان مركي ندرو مغلاي سومالي وحكستا كوكا غير سراتو لكن نين أجنبية نوع رباعاتو عربي عجب مركو كوسو دقدقو وجيب كدوكو واستا بريدنا دوكو أقول فتح مركا شرف نوتة سومالينا كدراني دولة الصومالية وحكرتها لنا dadka noocaas wadanka imanaya ajaanibta oo wadanka inta iska soo galaan dawladii ay siinayso damaanad qaad amni oo ciidamo ku dareyso waxa uu duubayo ciidamo Soomaaliyeed ba ilaalinayay حتى markuu hadlayo English ma yaqaanin miyaan waa fahmi waayay mise afruush buu ka hadlay bilaaydo ma garan karno wuuna xantay waa u cudur daarayna dawladda marka waxa laga rabaa dadka imanaya wadanka oo riboodada ka diyaarinaya adduunka ka jirta qofku markuu dhoofayo waa in la ogaado wuxuu wadanka kala tagayo wuxuu wadanka kala tagayo waa in la ogaado sida markuu wadanka soo galayo shidadiisa loo baaro oo loo hubiyo waxa uu wadanka maxaa ku iraadayay soo galinayo wuxuu kala baxayna wadanka waa in la ogaado wadankeenu wadan diin weeye kan hadal caybu inoo qaaday haduu cambarka xeebta yaala oo iska rasaysan intuu biri ruushka oo yimaado saa u guran laha ka warama dawladda marka waxa laga rabaa dadka imanaya il gaar inay ku hayso hal soo dhaweeyo laakiin dadku waa inay inoo kala socan yihiin عدي على أنه ودك إنه حمينه سو وإن واحد يصير تجرب كلا جل هرب ساسا هبون وهذا كان واحد كانوا شتو ووحي ودك كسر ضوي دتك يقص لي أو سود ويني سومالي ودد مرتين جعل سود ويا إيش صورة إن أجنبي جم حاكوا هذا هيان معهم إن كراعد سفي عن السلامة مركوير تهاي سوريا وقدرة هدي كان يروح النقلي نين سحن كي يروح كسيني كسحر وضي بالنقلي إن الجمد لكن waxaan leenahay Soomaali baratay maanta warba ku yaala warna waa ku galay sidoo kale dawladda Soomaaliyeed waxa iyadana muhiim ah wadanka Ruushka wasaaradda arrimaha dibadda inay dacwad u qorto oo safiirka ka jooga Muqdisho ay u yeerto dhahaan warninkaas wuxuu nagula kacay iyo samacad noo keenay eega Ruushku Putin wiil balaa haysta in dal kale arrimihiisa la farageliyo iyo waxa ma jecla دولة الصومالية هدي روشك عمشة وجود بيسو والله وحنا هو أنت لوير إنه محكمة استاجنية أورانيا محا الصومالية هذيك محا دلك أو عادي بركي روشك وحامي قانين مبادئ دولة السياسة ده أرمها تبدو حكود سمتاعي إنها وضن كلا أرميه يسجدها لفرقلين كما كفت مع وحا هدي ما أنت وزارة أرمها تبدو الصومالية أي سفير كورقة عمشة وديبتو نينكا موسكا لو حريبا مقلسان أما مركي ويرتاي محكمة بقى ويرتاي تانا الدولة دو أنا سمايصو sababtoo ruushku ma jecla wadan kale adduunka meel kasta ka yaalo arrimihiisa gudaha in la farageliyo Soomaali baa ka dhashay alxamdulillah rabbil alamin guul iyo gobonimo waa idin salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh